tallaabada ay maanta qaadeen saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxay ahayd mid lagu tayeynay caafimaadka aasaasiga ah daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Dila waxaana la soo kordhiyay baaritaano lacag la'aan ah iyo adeegyo kala duwan sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyay qalabyo caafimaad wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo ay weheliyaan baahda caafimaadka heer gobol iyo hay'adaha caalamiga ee wada shaqaynta wasaaradda wada leeyihiin ayaa goobtoob ka ahaa markii adeegyadan daryeelka caafimaadka loo soo bandhigay bulshada ku nool degmada Dila madashan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay maayirka degmada Dila Maxamed Cabdi Xaaji oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo soo dhaweeyna soo deeq caafimaada waxaana la daweynayaa dhammaan dadka bukaan socodka iyo kuwa xanuunka ugu weyn yahay dhammaan waxa baaritaan iyo waxa la bixinayaa dawooyinkuna waa bilaash aad baan wasaaradda uga mahadnaqaynaa shacbiga reer Dilaadna waxaan leeyahay waa fursad qaali ah oo maanta idin soo martay sida ugu fiican ee idin suurtagal uga faa'iideystaan wixii intaa ka dambeeyay ayaa waxa hadallada iska daba qaatay baahda caafimaadka waxaana ay ka warrameen ahmiyadda uu adeegani leeyahay barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay dadweynaha oo la siinayo baraarujin caafimaad oo siday caafimaadkooda u daryeeli lahayn inta iyagu qabsan karaan taasa horta koowa tan labaad waxa weeye cidda bugta gaar ahaan dumarka iyo carruurta oo dadka ugu nugula uguna xanuunka badan ayaa ku wajahan yahay waxaa la siinayaa in la baadho shaybaadhkii baa la socda dhakhtarka carruurta la socda kii haweenka kii cudurrada guud an initiative where we want to reach all women with integrated community reproductive health services. We want women wherever they are in Somaliland to be able to access reproductive health services, information and products. MCAjada ugu deegaan badan markaan u eego MCAjada gobolka Awdal waxa weeyaan barnaamij loo baahan yahay in lagu baahiyo waliba MCAjada Soomaaliland MCAjka ugu badan haduu yahay haddana markii dhakhtarba ay imanaya warkaas uu gaaray sawirkiibu wada la yiri dhowr dhakhtarba ay imanaya la yiri ay wacyigelintaasi ku horeysay waynu arkaynaa MCAjka geligiisa gudihiisa وعملين يهرون. دوك الواحد على كاسك هذا تدويني لو سمية أديك بلاش كا هذا لو دنو حاكم ده. سلام يا دمان هاي دكتور كوبان عفماتك تقول هاي تدبدا وحنا حنبليه يوم هذا القناة dawooyinka bilaashka ah kala korinta ciyaalka carruurta gaarka urayda ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Xasan Daahir Nabil oo ka warramay ahmiyadda uu adeegani leeyahay goobtani maanta Dila waa meesha saddexaad ee adeeg noocan oo kala laga fuliyo iyadoo la tahay dhakhtar iswata haday tahay dhakhtarkii carruurta dhakhtarkii haweenka iyo dhakhtarkii guud iyo qalabkii lagu eegayay iyo daawadii oo iswata oo inta ay bilaash looguna talagalay bulshada in la gaarsiiyo oo ay tahay markaa siyaasadda wasaaradda caafimaadka adeegan ayaa waxa uu socon doonaa 5 maalmood Cabdinaasir Ali Ile shabakada wararka Awdal Media magaalada Boorama